Farxiyo Faarax Cumar Cigaal oo ka tirsan ardayda dugsiga Axmed bin Xambal ee Kismaayo ayaa kaalinta labaad ka gashay imtixaanka fasalka 12aad ee dalka iyadoo heshay dhibco dhan 93.71. Guushani ayaa noqotay mid si weyn lagu farxay iyadoo Farxiyo ay ka mid noqotay ardayda ugu sareysa ee kaalmaha ka galay imtixaanka. Farxiyo waxay guushani ku gaartay dadaal adkeysi iyo waqti badan oo ay gelisay waxbarashadeeda, laakiin gadaasheeda waxaa sidoo kale taagnaa qoys si joogto ah u garab istaagay, gaar ahaan hooyadeed oo door weyn ku lahayd dhiirigelinta iyo taageerada gabadheeda. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كواد مجاي وفرحي فرح عمر عقال وحن دمي إسكول أحمد بن حنبل وهرت مركود إلهي ما هاد إسكال مركز لوالنا وحو ما هاد إلنا والدين تيدا أنتي وصلت تيري تعب بشيء لما نتود مركز لواد وحو هنبلينا وحو ما هاد إلنا يا معلمين تيدا كارهان ما معلم عبد الرشيد ماملهي هراء وحي صابري dhammaan u mahad celinaya macallimiinteeda fomasterkeyga xasan ducaale iyo dhammaan macallimiinteeda reer Axmed bin Xambal waa mahadsantihiin dadaalkiina iyo saad waxbarashada noola soo qayb qaadateen. Markii saddexaad waxaan u hambaleynayaa wasaaradda waxbarashada Jubbaland iyo tan federaalbo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre. waxaa dhammaan fariin u dirayaa ardayda maanta ku guuleysatay dhammaantood hambali aad u faraxsanahay guushiina anixtaa waa idin kula faraxsanahay insha Allah mustaqbalka waxaan rajeynayaa inaan intaan meel ka sareysa ka soo muuqdo waxami badanna waa leeyahay ilaahay waxa ka baryaa suutan igu rumeeyay intii dhiman inuu ilaahay ii fududeeyo insha Allah. Guusha Farxiyo kuma eko oo kaliya natiijada ay keentay, waxay sidoo kale fariin dhiirigelin ah u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay waxbarashada heer sare ka gaaraan. Waxaan Farxiyo Faarax hooyadeed Aamina Cabdulle Cismaan gabadheeda kaalinta koowaad ee qaato waa ku faraxsanahay, labaad ee qaato waa ku faraxsanahay waxbarashada dadaalka ay ku gaartay. Ilaahay mahadiisa waa Allah u mahad celinaya, ilaahay dadaal ay ku gaartay Allah u mahad celinaya. Fasalka labaad bay ka soo gaartay waxbarashada ilaa labaad way soo watay ilaa koowaad ilaa saddexaad ilaa afaraad ilaa 12aad ku keentay. intaas mar walba hamigeeda waan ku boorin jiray waxbarashada inay qaado waxbarashada hamigeeda ee la socoto. ilaahay alxamdulillah Allah u mahad naqaaya inay waxbarashadeeda meel fiican ku gaarto ee guul ay ku gaarto. haddana waxbarashada ugu meel dalkeed way hesho ku gaarto waxbarashada si fiican ugu baahan walba waxbarashadeeda anaga ku boorin jirnay garabkeedan taagnaa aniga soo korsaday oo gabadheed anaga hadda dhalana ogaan bay anaga ogaan ku soo korsaday anaga waxaan meelnay hooy Sember waxaan dhigi jiray hooy waxbarashada ku dadaal habeenii maalin u taagnaan jirtay. alxamdulillah shukr anaga waa u duceyn jiray si waxbarasho waxaan ardayda u diray habla waxbartay in ayagana saas oo galo guul uga rajeenayo in waxbarashada ay u bartaan si wanaagsan si fasalka ayaga u gaaraan waxbarashada heer sare uga gaaraan.